sheekh qurbaha ayaan deganahay halkan badi dumarka Soomaalida ee ku nool buu leeyahay sanka ayay dalooshadaan marka weydiinteedu waxay tahay qofka dumar inay sankeeda dalooliso ma banaan tahay sanko la dalooshada ma banaana waayo wajiga wuxuu diiday nabigu in lagu ciyaaro xataa xoolahan laga sunti karin dadkuna inuu dalooshado iska daa marka waa dhaqamada hinduuska iyo hindida bariga ee dabcaabudka ah Soomaaliduna waxay arkaanba waxay isaga qaataan inuu yahay ilbaxnimo walaw gaalnimaba ha ahaade saadaradeed la daloolin maayo waa inay dumarku ka fogaadaan iska ilaaliyaan waxa aan maqlay in marka la ducaysanayo aan la raacin karin ereyga insha Allah marka maxay tahay talow sababtu qofku isagoo ducaysanaya ma oran kara ilaahu waxa isi insha Allah ducada iyo mashii'ada la isma raaciyo ilaahay waxa isi hadaad doonto waa la diiday والرسول كان ديري صلى الله عليه وسلم من آداب الدعاء الجزم دعاء آداب تيدا waxa kamidayna go'aan haato hadaa doontana go'aan kuma jiro haduu dooni waayo maxad qaadi kartaa ilaahay hadaa doonto iga aqbal baatil haduu dooni waayo meel kale oo adu kacdo iyo cid kale oo ilaahay ku bedelata miyaad haysaa marka aadaabta ducada kama mid aha insha Allah in la yiraahdo ila insha Allah macnaheedu waxa weeye hadaa doonto حتى هدي تبرك تود بركيسنا يسوات كدينيس ما دام النبي ديري عليه الصلاة والسلام. سؤال شكو حكتا سائل كانوا حولي الشيخ صدق وكلا وحان دقنا هيدا لك قلبيتك وحان أصحاب لا هيدا بدن أو أن مسلمين أهين. مركا حفلة ده عيد دقالة مركا قيب جري كرا هدي صاحب بدي دقار كاهي يوصل مرتقادان. إن عيدها قالة كلا قيب قشه. يا إن الله صاحب تقال كي لبضنا واحد كوتشي ذكران قال لمو. حرام وعيدها قال لماذا إن لقى قيب قاله واعتراف بشيء إن الأقوستي أو الاعترافتي وحباطلة شيء باطلة أو أنشرين الاعتراف طول أقوستي أي شيء كان سكبرت النقطوي السادة الأدب بعلمنا آد وقد يجرين وإذا مروا باللغو مروا كراما وحيحون مركز صومران وين آفان كما قيب قاتان يا وحي بلا معناه wax macsiyaana iska daaba qofka gaalka la saaxiibtiisuna khatar bay leedahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay al-mar'u ala diini khalili falyanzur ahadukum man yukhalib qofku diinta saaxiibkii uu haystay qof walba ka fiirsa cid la saaxiibayso dhibco kugu dhibqinaya marka dambe wixii sucaadi bay kula noqonayaan raacdaana waa laga yaabaaba